السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaanba marti sharafka ka soo qayb gashay xafladan Suldaan Mustafa Maxamed Awseed siyaasi ataash diblomaasi Nastaxa Axmed iyo dhammaanba cid kasta oo ka soo qayb gashay xafladan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaalidu waxay oran jirtay arooska laguma raago lagamana raago imika se waxa la yiraahdaa xafladaha hadal badan lagama yiraahdo marka mowduuc balaaran ama mowduuc weyn iyo daqiiqado kooban baa la siiyay oo aan isleekaysiin doonaa taariikhda deegaanada SSC marka aynu ka hadlano waxay ka soo bilaabataa xilli aad u fog oo la sheego xataa ilaa iyo faraacintii in ay taariikhda deegaanada SSC xiriir la leedahay gaar ahaan dooxada Nugaal oo la sheego in laga helo raadad iyo astaamo ka tirsan kuwii faraacinada taariikhda dhabta ah ee la hayay deegaanada SSC waxay ka soo bilaabanaysaa 1500 ilaa 1500 bartankeedii xilligaasi oo ahayd xilligii halgankii Axmed Guray oo dad badan oo reer SSC halkaas ay uga gurmadeen sida lagu sheegay taariikhda buugga laga qoray Futuuxul Xabasha Axmed Guray deegaanada SSC waxaa ka soo jeeda rag taariikhda Soomaalida magacyo waaweyn ku leh sida Afxakame Cali Duulane Ismaaciil Mira Cali Dhuux xirsi Cartan Boos iyo sidoo kale rag kale oo taariikhda Soomaalida ku leh magac weyn dhamaadkii 1800na deegaanada daraawiishta deegaanada SSC waxaa ka hana qaaday halgankii daraawiishta oo ay lagu dagaalamayay dhammaanba gumeystayaashii ku soo duulay deegaanada Soomaalida 1905 gumeystuhu waxa uu dareemay ama tixgeliyay awoodii daraawiishta wuxuuna xilligaasi heshiis la galay deegaanadii ay daraawiishtu ka talinaysay iyadoo loo ogolaaday daraawiishtu inay ka taliso dooxada Nugaal iyo badda ku beegan iyo dhulka ballaaran ee u dhaxeeya saldanadihii Hobyo iyo sidoo kale saldanadii Baargaal heshiiskan waxa burburiyay dawladda Ingiriiska kadib markii ay faragelisay doonyo hub siday daraawiishta halkaasina waxa ka qarxay dagaal weyn oo markale dhex maray gumeystaha iyo daraawiishta waxaana daraawiishta u suura gashay in ay la wareegaan deegaanada ka bilaabanaya Ceerigaabo Eyl Qorraxay iyo ilaa iyo Beledweyne sanadku markuu ahaa 1914 daraawiishtu waxay ka qayb gashay dagaalkii koowaad ee adduunka xilligaasi oo ay daraawiishtu ka dagaalamaysay geeska Afrika isla markaasina ay garab siinaysay quwadihii Turkiga iyo Jarmalka ee ka dagaalamayay qaaradda Yurub 1920 waxaa la jabiyay ama laga adkaaday halgankii Soomaaliyeed ee daraawiish sababaha looga guuleystayna waxaa ka mid ahaa sida la sheego iyadoo ay adkaadeen ama dagaalka koowaad ku adkaadeen dawladaha Ingiriiska iyo Faransiiska iyo xulfadoodii sidoo kale waxaa laga adkaaday dawladdii Turkiga iyo Jarmalka iyo dawladihii isgarabsanayay xilligaasi waxa isagana sidoo kale laga adkaaday oo la inqilaabay boqorkii Itoobiya ee muslimka ahaa Ilyaasow oo daraawiishta ay gacan saar wada lahaayeen dawladda Ingiriisku waxay isticmaashay xilligaasi siyaasadda loo yaqaano al-ardi al-mahruuqa oo ahayd in la burburiyo oo la dumiyo dhammaanba dhulkii daraawiishtu ay u ahayd bayska ceelashii loo sumeeyay dhulkii la bililqaystay xoolihii dadkii iyo dhammaanba wax kastoo halkaas laga heli karayay guud ahaan daraawiishta sababaha looga adkaaday waxaa la sheegaa in ay ka mid ahayd jiilkii dagaalka xilligaasi oo isbedelay iyadoo la sheego in dagaalku tan iyo markii bani aadamku uu dhashay ilaa iyo laga soo gaaro 1914 lagu jiray hal jiil oo ahayd jiilka lagu dagaalamay warmaha iyo seefaha isla markaasina la galay jiilka labaad ee dagaalka ee baaruudda loo gudbay xilligaasi daraawiishta iyo dawladaha isgarabsanayeen waxay ku guul dareysteen in ay ka gudbaan jiilkaasi oo baaruudda u gudbaan jabkii daraawiishta kadib dawladda Ingiriisku waxay ka aarsatay beelihii daraawiishta waxaana ka qaaday ama ka ururisay dhammaanba hubkii iyadoo hubaysay beelihii kale iska soo horjeedaan xilligaa waa kii abwaan cilmi carab cabdilahaa isagoo la hadlaya salaan carabi ay soo gabiyeen leeleesho gaaladu hadaanay kugu lamaanaanin adba ilama aad loolanteen oo lilaahi ladnaanshaba waxay ku ahayd laba dharaarood ee gob la ciifta waa la arki jiray gunise waa liiday Ingiriisku xilligaa waxa uu xirxiray odayaashii iyo waxgaradkii deegaanada SSC iyadoo qaarkoodna la maxkamadeeyay 1960kiina waxay dawladda Ingiriiska dadka racab ama shacabka reer SSC waxay ka mid noqdeen bulshadii Soomaaliyeed ee halgankan hubaysnayn kula jirtay gumeystaha habeenkii xorriyadda iyadoo laga damaashaadayo fagaarayaasha laascaanood
أيضا إن الدياب كورة جراسة وحيكتش يسجبي أي كل هذا هاي إنجليز وبحيث ما يساعي نجاب قال حفيز يدا نوبا حاشيها كجرا حق هذا اللهين حسابتي سوي كديرين كدب markii Soomaalida xornimada qaadatay dadka reer SSC waxay ka mid noqdeen dadkii ka qayb noqday xoreynta Afrika iyadoo la xasuusto heesta Afrika ay hurudoy oo lahaa abwaan Ismaaciil Xirsi Ciise Farxaan oo ka tirsanaa hal abuurkii reer SSC burburkii kadib reer SSC waxa ay noqdeen shacabkii koowaad ee Soomaaliyeed ee isu yimaaday isla markaasina ka shaqeeya sida ay u dhisan lahaayeen dawladnimo isla markaasina qarannimadii Soomaaliya loo soo celin lahaa xilligaas oo Soomaalidu ay shirar dibadda ku mashquulsanayd la isku hayay Soomaalinimada ama dawladnimada Soomaaliya ma korba laga bilaabaa mise hoos shacabka reer SSC waxa ay si ficili ah oo waaqici ah u tuseen in laga bilaabi karo hoos waxaana qabteen shirkii Boocam ee 1993 xilligaas shirkaas dadka amaanay waxa kamid ahaa Budros Qaali oo kamid ahaa xogayihii qaramada midoobay xilligaas tan iyo xilligaas shacabka reer SSC kama aanay quusanin raadinta qarannimada iyo midnimada Soomaaliya waxaana qabteen shirar waaweyn oo ay kamid ahaayeen shirkii Buuro Wadal Holhol Nairobi iyo sidoo kale shirarkii Taleex 1 iyo Taleex 2 mararka qaar koodna waxay u galeen dagaalo hubeysan iyo sidoo kale dagaalo dhiig ku daatay halganka reer SSC 2023 waa laga wada dhirigsan yahay oo idinka sheekayn maayo laakiin 1920 hadii reer SSC ay ku guuleysteen inay burburiyaan damicii waalaa ee gumaystaha 2023 waxay markale ku guuleysteen inay burburiyaan dhaxalkii gumaystaha ugu dambeyn mabda'a reer SSC waxa weeye Soomaalinimo midnimo nabadgelyo iyo deris wanaag wad maasantiin aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdalla Axmed Khaalib sida wanaagsan ee uu taariikhda